إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan kugu jirnaa muxaadarooyinkii aan u hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka. waxaynu ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay waxyaabo soonka burinayo iyo waxyaabo soonka aan burinaynin iyo waxyaabo ay ka dhalanayso kafaara. gaar ahaanna waxaan ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay waxa jirka ka soo baxa soonka miyay burinayaan mase ma burinayaan. mas'aladan waxaan ku arki doonaa insha allahu tacaala irtikaabu saa'imi lilmacaasi. qofkii soonnaa ayaa macaasi la yimid, soonkiisi muxuu noqon hayaa? walaalayaal, waxaan shaki ku jirin wax kastoo xaaraan ahaa ama wax la kahda ahaa, waxaase ha noqdaana wax lagu hadlo ama wax la sameeye ramadaanka qeyrkiisa hadday xaaraan ahaayeen amaba ay makruuh ahaayeen, ramadaanka markii la soo gaarana xaaraannimadu ay karaahiyadooda way sii xoogaysanaysaa. kama hadlayna marka qofka sooman muxuu u sameeyay waxaan xaaraanta ama waxaan la kahday, taasi inaysan banaaneen qof kasta uu garanaya oo muslim ah. mas'aladaas waxa naga qusay marka waxa weeyaan, haddii ay dhacdo qofkii soonnaa inuu macaasi la yimaado, soonkiisa muxuu noqonayaa? miyuu burayaa mase ma burahayo? arrintaasi culimmadu waa isku khilaafeen. culimmada qaar ka mid waxay yidhaahdeen macaasida soonka way burinaysaa, way fasahaadinaysaa qofkii macaasidaasi ula yimid si ula kaca. qofka ku talagal ula yimid shay macaasi oo xaaraan ah, qofka asaga ah soonkiisa waa burayaa ayuu qowlka kuwaad leeyahay. qowlkaasina waxaa qaba daahirida. jamaaca taabiciinta ka midna waxaaba ka yimid inay yidhaahdeen xanta iyo beenta soonka way burinayaan. haddii qofka wax xanto ama been uu sheegay, soonkiisa waa burayaa, waa qof afuray buu noqonaa bay yidhaahdeen. waxyaaba ay daliilsanaan waxaa ka mid ahaa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله وحو الله جل جلاله ضدك مؤمنين تأوحوا يركوا إيمانك لغيه ليو كتب عليكم الصيام صان أيا لذيك واجب يلي كما كتب على الذين من قبلكم سيدي صانك لغو واجب يلي ذاتك إذكوه ريي لعلكم تتقون. سياد الله وعبستان سبحانه وتعالى. danta soonka loo jeeday marka waxay aheeday qofkii inuu gaaro dadka muttaqiinta alla ka baqa darajadooda iyo heerka ay joogaan. qofkii si ula kac ramadaan dhexdiisa alla ku caasiyo jalla jalaaluhu, qofka asaga ah dantii soonka loo jeediyay ma uusan la imaanin ee aheeday alla in laga baqa subxaanahu wa tacaala. waxyaabaha kale oo dilisan waxaa kaloo ka mid ah hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa: man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo hadalka beenta ahoo lagu shaqeeyo, alla danka malaha qofkaasi inuu ka taga raashiin iyo cunid. haddii aad waxaad cuntay iyo waxaad cabtay aad ka tagtay, laakiin been iyo xan isku dir iyo waxyaabo macaasi aad la imaanayso, soonkaada alla subxaana wa tacaala wax dan oo uu ka leeyahay ma jirto. marka qowlu zuur waxa weeyaan waa kadib bay yidhaahdeen, waa been. wax kastoo xaaraan ana waa lagu ximbaari karaa. qowlu zuur marka haddii la yidhahdo waa beenta ama wax kastoo xaaraan labadaba. xadiisku wuxuu tusinaa marka soonka ujeedada laga lahaa ma ahan in qofka sooman oo oomo baahdo, laakiin danta laga lahaa waxay tahay qofka sooman inuu alla ka baqo subxaanahu wa tacaala. qowl waa mas'alada ku jira wuxuu leeyahay qofka hadduu dembi la yimaado oo macaasi uu la yimaado ramadaanka dhexdiisa, soonkiisa buri maayo, welibana si kas hadduu rabaa u yimaade. qowlkaasna waxaa waa jumhuurul culamaa. culamada sida badan saasay qabaan oo ay ka mid yihiin a'immatul arbaca: abu xaniifa, maalik, imaamu shaafici iyo imaamu axmed. aimadaas afarta ah iyo culamo badan waxay leeyihiin qofka dembiga la yimid waa dembi, laakiin dembigaasi uu sabab noqon maayo soonkiis inuu ka buro. waxyaaba ay daliilsaneen waxaa ka mid ah lama hayabeereen daliil saxiix ah oo ku filan oo caddaynaya qofkii macaasi la yimaadaaye soonkiis inuu burahayo. maadaama aan daliil noocaas la haynin, waxaa asal ah bay yidhahdeen soonka inuu baaqi huu jiro. marka haddii shayga xaaraan qofka uu la yimaado, shayga waa xaaraan mas'alo kala weyn, laakiin shaygani soonka ma burinayo, soonka saameyn ku yeelan maayo. masaladan ah qofka hadduu macaasi la yimaado ramadaanka dhexdiisa si ula kacna uu la yimaadayo, soonkiisa muxuu noqonayaa? waxa raajixa inay soonkiisa uusan buraynin, laakiin ajirkiisi baa nusqaamahayo.
waxaa la rabaa qofka inuu iska ilaaliyo waxyaabaha ajirkiisa nusqaaminhayo maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc waxaa badan qof sooman soonkiisan aan ka helin gaajo mooye wax kaleba aan ka helin qofka asaga uu soomay soonku wuu gutay oo faradka kama uusan tagin laakiin waxa laga waayay inuu soonkii ilaaliyo saadaraada marka ajirkiisa ayaa nuqsaamahayo mas'ala kalena waxa weeyaan qofka sooman haddii ay dhacdo qof inuu caayo ama af laga deeyo qof baa ku caayo kugu xadgudbay qofkaasi inaad tiraahdo war aniga waa soomana iga leexa oo aad maqashiisay ma banaanta ma banaano maxay culimada arintaas ka dhaheen culimadu waa soo khilaafeen oo qolo waxay yiraahdeen inuu la jahra way banaanta oo qofkii caayay ama af laga deeyo ama la dagaalay inuu yiraahdo inni saa'imun inuu yiraahdaay waa banaanta soonkii faradka ha noqdo ama soonkii sunnaha ha noqdo soonku midku doonaba ha ahaadee qowlkaasna waxa qaba jamaacad min ahli ilmi imaam an-nawawi rahmatullahi alayhi qowlkaas ayuu rajaxay sidoo kalena waxa rajaxo qowlkaasi qaatay ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi waxaana tusinay xadiiskii ahaa fa in sabahu ahad aw qatala faliqul inni sa'im xadiiska marka daahirkiisu wuxuu tusinayaa hadduu qofku caayo ama wax u geyso la dagaalamo inuu dhihi karo aniga waan soomanahay iga leexo qowl labaad mas'ala ku jira wuxuu leeyahay inni saa'imun qarsanaya kor uma qaadahayo waxaana qaba jamaacad min ahli ilmi waxayna xujo ka dhiganayaan waxa weeye ujeedada waxa weeyaan qofka naftiisa inuu xusuusiyo inuu sooman yahay si uu ugu joogo inuu sida loo caayo kale u caayo ama uu aflagaado u geysto iyo waxay yiraahdaan inuu riyaa ku dhaco isaasa u fiican inuu qofka hoos u yiraahdo waan soomanahay oo naftiisa xusuusiyo ayaa wanaagsan si uu riyaa ugu dhicin qowl saddexaad wuxuu leeyahay oo masaladaas ku jiraay hadduu soonka ramadaan yahay uu cadeysana wali jaara wuxuu leeyahay aniga waan soomanahay hadduu soonka sunno yahay uu qarsanaya naftiisu xusuusina uu leeyahay aniga waan soomanahay jamaaca ahlu cilmi kamid ay arintaasina qaba waxay daliil ka dhiganayaan cibaadada in la qariyo ayaa ka fiican in cibaadada lala jahro waxayna keeni kartaa haddii cibaadada lala jahro la yiraahdo waan cibaadaan ku dhex jiraay riyaa bay keeni kartaa mas'ala marka waxa raajix qowlka ugu horeeya ee dhahaya soonka farad iyo sunno wuxuu doonaa ahaadee wuu la jahraya oo wuxuu leeyahay inni saa'imun xadiiska daahirkiisa ayaan arintaas tusinaya waxaa muhiim in la ogaado waxaan niri haddii adoo sooman qof ku caayo ama ku aflagaadeeyo waxaad leedahay inni saa'imun aniga waan sooman inuu fara iga qaad maraba si adiga asameeyay kor inaan sameeyo saadarteed fara iga qaad inay tiraahdo la rabaa haddaysa dhacdo qofkii inuu muranka iyo dooda sii wado iyo caaydi maxaa sameynaysaa xaq waxaad u leedahay marka inaad iska celiso oo aad yaani maragtay adeegsato wasiilada ama qaabka ugu fudud ee aad qofkaas iskaga celin karto adoo heli karo in wax yar iskaga celisay wax badan inaad yaani maragtay isticmaashay ma fiicno marka qofka haduu ku waxad gudbo oo u sheegto xusuusir aniga waa Soomaaliya ku maxad gudbay idaaf oo ku daay waayo xaq waxaad u leedahay inaad iska celiso laakiin hadba waxaad maraysaa wadada ugu sahlan oo aad yaani maragtay ku nabad gali kartid qayb kale ayaan u gudbaynaa oo ah hadii ay dhacdo qofka xaaskiisa inuu galmoodo amaba ay dhacdo in muqaddamatul jamaa'a la yimaado iyo xukunka ka dhalanaya haduu ninka xaaskiisa u galmoodo oo loo yaqaan kafaarada muxuu yahay arintaas rabnaa inaan ka hadalno masaa'il baan arintaas ku jira mas'alooyinkaas waxa kamid ah hadii ninkii uu galmoodo xaaskiisa maalin ramadaan ee xusuusta inuu sooman yahay asagoo og inay xaraan tahay maalin ramadaan xaaskiisa uu galmoodo xusuustan inuu sooman yahay cid qasabtay inay sii jirin qofkaas soonkiisa muxuu noqon hayaa aimada waxay ku ijmaaceen qofkaas horta dambi inuu ku dhacay koo horta waa dambaabay baa la leeyahay marka labaad waxa la leeyahay soonkiisu waa buray Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu idin xalaaliyay habeenada ramadaanka ama soonka lagu jiraayo xaaskiina u galmootaan maxaa yeelay dhar bay idin yihiin adinkana dhar baa u tihiin oo sida dharkaada ay coradaada iyo ceebtaada u qarinayaan ayay haweenka aad qabtana ama ninka adiga ku qabaay ayuu ceebtaada iyo coradaada u qarinayaan marka labada qofood isqabto waxa rabaa in isu noqdaan qofka iyo dharka oo wato oo kala oo dharkaada adiga dhibka sheegi maayo ceebaha iyo waxyaabaha aad leedahay dulduleeda qaladaadka aad leedahayna banaanka ma soo dhigahayo sadarta marka waxa rabaa in si dharka oo kala la isku noqdo dabcan waxaan ognahay dharka inuu wasaqoobayo hadii wasaqoo in la dhaqay u baahan yahay saadaraade marka labada qof isqabtaan mar bay wax dhaxmarayaan wixii oo humaag ah ama mugdo soo kala dhaxgalan waxa rabaa inay nadiifiyaan oo khilaafkana ay ka badbaadaan mar hadii qofka xaaskiisi oo u galmoodo xilli ramadaan waliba maalin ah waxa la leeyahay soonkiisu waa buraya wuuna dambaabaya minidaha ka timaado ama ay ka iimaan waxa culimadu isku khilaafeen kafaarada qofka ku waajibtay sidee tahay hadii qofka
maalin ramadaan xaaskiisa u galmoodaa kafaarada ku waajibaysa waa noocee ama sidee waay qofka xaaladaas markuu yahay oo xaaskiisii maalin ramadaan u galmoodo kafaara ma ku waajibaysa ma soo kuma waajibayso qolo waxay yiraahdeen kafaara ku waajibi mayso salafka qaar kamid ayana saaqabo oo waxay leeyihiin Allah subhanahu wa ta'ala muusan ku cadeyn quraanka dhexdiisa in maxaan ku yiraahdaa kafaara laga rabo sidoo kale waxay yiraahdeen salaada baa lagu qiyaasanaya asoo qofka soo salaada ku jira ama wayse qabaay hadduu xaaskiisa u galmoodo salaada way buraysaa soomaan kafaara laga maraba soonkana wala mid bay yiraahdeen qowl kale wuxuu leeyahay kafaara ayaa ku waajibayso waana jumhuur culama say qabaan oo ayna kamida imatul arba'a Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad iyo ay makalaba waxayna diliseen xadiiskii Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu Abu Hurayra wuxuu yiri baynama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam xilli aan nabiga agtiisa aan fadhinay idii jaahu rajulun ninba nabiga u yimid alayhi salatu wassalam faqala niku wuxuu yiri ya rasuul Allah halaktu waan halagsamay rasuulka waan halagsamay ayuu ninka yiri rasuulku wuxuu yiri ma laka maxaa ku dhacay qala niku wuxuu yiri waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'imun anigoo soonay xaaskeedu ku dhacay oo xaaskeedan u galmooday rasuulka alayhi salatu wassalam wuxuu yiri hal tajidu raqabatan tu'tiquha mehelisa adoon aad xureyso qala niku wuxuu yiri la meheli karo qala rasuulku wuxuu yiri fa hal tasdiicu ma awda an tasuma shahrayn mutatabi'ayn ma awda ina soonto laba bilood oo xiriirto ninka wuxuu yiri maya ma awoodo rasuulku wuxuu yiri fa hal tajidu id'ama 60 miskinan 60 miskin ma qoodi kartaa xadiiskan waa dheeraay waa xadiis ay soo saareen Bukhari Muslim xadiis markuu wuxuu tusinayaa in kafaara laga rabo qofka hadduu xaaskiisa maalin ramadaan u galmoodo markii arinta laga hadlayna waa midka ugu raajaxsano waxa la rabaa qofka kafaara in la yimaado xadiiska baana cadeynayo qolooyinka khilaafsan arintaas waxa weeyaan inuu xadiiska soo gaarin baa dhici karto على حال خلافك وحنوقنا خلاف شاد هو معتبر من نقونا يبالي ليه هسا حتى وحا مهم إنه براروغا قفكي أقل موضا حاسكيسا أسوء إلوسا إنه يعني ما السومي هو به المامبا أما هو بالجاهلو إن مالين رمضان حاسكيسا أقل موضا إني ممنوعتها مبا أقبا أو جاهل بوبا كي يحرنتاس أما هو الله قصبيبا أرنتاس ونو إمادونا إن شاء الله تعالى كهذا الكيدو مسألة كلا وحويان هدي أي دعضو مرك هويني دي ninkii inay raali ugu noqoto oo ay ku adeecdo inuu u galmoodo idina ay sooman tahay waliba soonka ay sooman tahay oo soon Ramadaan ah kafaara miya laga rabaa ma laga rabaa hadda waxaan soo sheegnay ninka xaaskiis u galmoodo maalin Ramadaan horta uu dambaabay soonkan waa ka buray wuu qadaynaya kadibna kafaar gudbo la imaanaho wuxuu qoreynaa adoon hadii la heli karo xilligan kulmaba jirtaba ama laba bilood buu soomaya oo xiriirta ama 60 miskiin buu qoodinaya oo afar saac wixii ku filan ayuu siinaya taa waa ninkii marka haweeneydii ka waran hadii ninkeedii ay raali ugu aheeday inuu u tago maalin Ramadaan la joogo idina ay sooman tahay kafaara ma laga rabaa ma laga rabo mas'alaas culimo isku khilaafeen qolo waxay yiraahdeen wax kafaaro naagta laga rabo ma jirto xitaa aan bal qasbaninba haday doonto raali ha ahaatee wax kafaaro naagta laga rabo ma jirto ay yiraahdeen qolo salafka qaar kamid say qabaan weeyaan وانا الأصح عند الشافعية شافعية تومنك وأصحصن ويان وانا رواية إما أحمد لقوري الله تعالى عنه وارضاه وحيبا يدلسنا وحاكم الحديث كهذا عن صمر أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام منك وحو أمري إنه كفار قول لي ماذا ناكتنا مرهن كفار قول لإمام صوت نكان كفار قول كان تحوى ناكتسن أقل ماضي إلا نك وحو يري وقعت على زوجتي بوده مكت وحي هذا وحيابا أولو بهايها أولو عدى يدب لور لقاية ما بانانا بيه هذا مركا هدي أي naagta in kafaaro guud ay waajib ku ahaan laheeday rasuulka kaleey salaam wuxuu dhigi lahaa islaan haweeneydina ha kafaaro gudato ninkana loogu qiyaasanay bay yiraahdeen waa qoladaas qol labaad waxay yiraahdeen naagtu waxa ku waajibay kafaaro maadaama iid ay adeecday ninkii oo ay raal ugu aheeday hawshaas in dhacdo qolkaaseen waxa qaba jumhuurul ulama oo imaam Malik Abu Hanifa iyo al-madhhab cinda al-Hanabila iyo qol Shafi'i ay leeyihiin weeyaan waxayna xujeysanayaan oo ay leeyihiin waxa asal ah rag iyo dumarka ahkaamta inay ka simeeyeen xukunka oo loo cadeey ninka waxay tusinaysaa bay yiraahdeen haweeneydan in loo cadeeyay maxay ila al-illatu waahida illadu waa hal bay yiraahdeen oo waxay tahay in ninka iyo naagta ay wadaagsadeen oo ay shirka ku noqdeen soonkii xurmadiisii inay dilaaciyaan marka haweeneyda in la sheego looma baahna ninkii hadii la sheegay naagtuna waa lamid oo qolkaas labaad leeyahay labada qol marka culimo qaar waxay rajaxayaan qolka labaad ee dhahayo haweeneyda kafaara baa laga rabaa culimo qaarna waxay leeyihiin oo ay rajaxayaan qolka hore oo ah ninka baa kafaara laga rabaa oo kaliya sida daahirka xadiiskana waxa weeyaan
ninka kaliya ana kafaara laga rabo weeyaan halkaas waxaan ka fahmaynaa walaalayaan haddii ninka naagtiisi oo u galmoodo ay dhacdo iltiqaa'ul khitaanayn walow biyayba imaanina qofka asaga waxa weeyaan soonkiisa waa buray kafaarana way ku waajibaysaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam